وفصل وان أفر شركة official وفصل هذا العدنا ما ويدينيس وحكى له فصل له ورشدة برفكا أنا هذا ورشدة برفونكا وحكى له فصل له وزارة أما بورشدة باستدا وحكى له فصل له حوج كورنتدا وحكى له فصل له بانجيارو إيو وهاجاك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماهيرتا صوماليدا ميل walbo joogtaan waxaan idin leeyahay waqtiga haydiin wacnaado ramadaan mubaarak ilaahay soonka naga aqbalo ilaahay jalla wacala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iideysto bishan qeyraysan qayrkeeda warbishan laga faa'iideysto anyway haddii aad videogan ay tahay markii ugu horeyso daawanayso waxaa codsi walaaltinimo ah qof walbo video soo gaaray inuu like noo saaro like-ta wax badan ayay naga kordhinaysaa adinkana waxba yani ham idinkuma sameynaysa annagana waxbay noo taraysaa channelkana ilma adeeryaal ku soo biira inta ka sokow waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin muhiim ah oo u baahan in ummadda Soomaaliyeed loo sheego loo iftiimiyo loo bidaamiyo arrintan waxay tahay waxaad ogtihiin dalka Soomaaliya in xilligan aan ku jirno gaar ahaan magaalada Muqdisho ay tahay xarash ama fossil madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku soo galay waliba uu yani orolihiis doorashada waxaa ka mid ahaa qabiyo ninkeeda dhammaystiro waa ololihii uu ku soo galay xilligii 2017 ee ka dhamaatay uu ku sharaxnaa oo Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxtinimada ku guuleystay haddana wuxuu ku soo galay qabiyo ninkeeda dhammaystiro waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno qabiyadii uu dhammaystirayay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh iyo meesha ay marayso kadibna adinka leedinka rabaa shacabka Soomaaliyeed maadaama aad tihiin inaad fikirkiina iyo caqligiina aad ka dhibataan waxaad u malaysaa in shacabka Soomaaliyeed dalka ay marti ka yihiin waxaad u malaysaa in shacabka Soomaaliyeed dalka ayba u arkaanbo siyaasiyiinta wax isweydaarsanaya bas inuu ka dhaxeeyo waxay hilmaameen ummadda Soomaaliyeed in dalkan uu ayaga leeyahay in dalkani go'aankiisa laga rabo in ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed in ay ka fakirto haddaba waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhowr arrin oo muhiim ah oo xaqiiqa oo aan soo cadeeyay ayna muhiim tahay inaad degeysatid Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay 2022 bishii shanaad 15keedii intaan la dooran ka hor ayaamihii lagu jiray electionka ama doorashada inuu dhammaystiri doono waxyaabihii uu ka tagay haddaba waxaan rabaa inaan isla fiirino 8 bilood ama 10 bilood ee ugu dambeysay waxyaabihii u suurta galay ama uu isku dayay inuu qabto waxaa meeshaan ku qoran almost 16 kamid ah hantida Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya dhulka Soomaaliya hantidii dawladda ee la gatay waxaa la gatay ama haddaba miis ka saaran oo la gadanaya oo niman qowlista daniista u shaqaysiyaala calooshooda u shaqaalistiyaala loo xil saaray in ay hawshan soo dhameeyaan kow warshada caanaha waa fossil waxaa kaloo fossil ah wakaaladda hargaha iyo saamaha hadalkan idiin sheegaya ma aan wax la iska soo qoray waa wax xaqiiq ah dhaqaalahan lacagtan waxaan lagu gadaynay waa lacag aadayso shakhsiyaad jeebkooda ma ahan hantida in dawladda dib loo gelinayo saddex carwo taleex waa fossil waa afar shirkale official waa fossil hadal cidna ma weydiinaysid waxaa kaloo fossil ah warshada barafka ana hada warshada barfuunka waxaa kaloo fossil ah wasaaradda ama warshada baastada waxaa kaloo fossil ah xooga korontada waxaa kaloo fossil ah banjiaro iyo bulxubey waxaa kaloo fossil oo meeshan aan ku soo qoray wakaaladda dibudhiska iyo howlaha guud ayadana waa fossil waxaa kaloo fossil guryihii ruushka ee hodan waxaa kaloo fossil oo aan laga xishoonin oo madaxweynaha dalka uusan ka xishoonin isbitaalka Nasrid xataa isbitaalada dadka lagu daaweynay dadka xanuunsanaa ee u shaqeynayay ummadda Soomaaliyeed oo aan ognahay in dagaal uu ku jiro qofka markuu soo dhaawacmo dhibaato ku dhacdo looga waxaynay xataa it is just fossil waxaa kaloo fossil ah garaashkii geedadka ee Kaaraan waa fossil waxaa kaloo fossil guryihii bangiga oo dhan bangiga dawladda Soomaaliya xataa xilligan kula hadlayna waxaa fossil Central Bank of Somalia
waa foosel. waxaa kaloo foosel ah oo oodihii gaashaandhigyada. intaan idiin sheegay ma ahan war la iska soo qoray, waa war xaqiiqdiisa la ogaaday oo dowladda iminka noo talinayso madaxda dalka ka ah ay qorshaysay in ay gado una xil saartay dad shakhsiyaada oo la rabo arrintaas inay fuliyaan. haddaba haddii intaas la gado, dalka aan ka sheekeynayna maxay tahay, dowladda aan ka sheekeynayna maxay tahay, waa maxaa dadka loo qaldayaa? dadka maxaa loo qaldaya? waxaan ognahay markii la qabtay caleemasaarkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in madaxweynihii hore xafidahullah maxamed cabdullaahi farmaajo hantidii qaranka oo aanan nus ka maqnayn inuu ku wareejiyey madaxweynaha hadda cusub. hantidii lagu soo wareejiyey, caqligeeda su-aasha baan ku weydiinaya, ma kula tahay xasan sheekh inuu madaxweynaha ku xigo ku wareejin doono hantidii siday ahayd loogu wareejiyey oo maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku wareejiyey? hantidaas ka hor maxamed cabdullaahi farmaajo intaan lagu wareejinin, xasan sheekh waxaa ku wareejiyey sheekh shariif hantida ayadoo sidoo saxda ah. haddaba su-aasha idin weydiinaya waxay tahay 2026 qofkii naf ilaahay ku gaarsiiyo, ma kula tahay xasan sheekh maxamuud in hantidan ayadoo saas ah uu ku wareejin doono madaxweynaha xog? adigan jawaabtaas kaa sugayaa comment sectionka hoosena, adiga ayaan rabaa fikirkaada maadaama aad tahay muwaadin soomaaliyeed in arrintaasi ay suuragal tahay. war waddanka annaga iskale yaana marti ka noqon shacabka soomaaliyeed. waddankiina waxaa laga hadlayo waa masiirkii ummadda soomaaliyeed. videoga like noo saar, channelka noo subscribe gare.